saaxiibayaal tan iyo markii 26 December ee sanadkiina dhaafay dowladda Israel ama maxaan ku yiraahdaa Israel ay aqoonsatay Somaliland oo ah gobolada waqooyi ee Soomaaliya qayb ka mid ah waxaa soo baxay warar kala duwan faallooyin kala duwan halqudhigyo kala duwan maxaan ku yiraahdaa iyo qaababka loo wajahayba haba ugu badnaadaanba dhacdooyinka ka soo baxay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya oo ay horbood u ahaayeen xukuumadda Soomaaliya dabcan wararkii ugu dambeeyay iyo falanqeynihii ugu dambeeyay markaan dib u fiirino waxa soo baxay waxay ahaayeen waxyaabo la yaab leh oo aan laga fiirsan dabcan madaxweynaha Soomaaliya iyo tiimkiisa waxay wajaheen diblomaasiyad sare isla bilowgiiba iyagoo ka aamusay markii hore isla markaana dhankaas iyo qaramada midoobay halkaas oo la dhihi kara dood badan kadib adigu Somaliland aqoonsigeedii inuunan gacno badan ama luga badan ku taagnayn ayaa soo baxday balse wixii ka dambeeyay maxaa dhacay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa u safray dhanka Dhuusamareeb halkaas oo uga qayb galayay shirka aragti wadaagga ee macadka Heritage oo halkaas lagu qabtay dabcan halkaas waxa ka soo baxay waxay ahaayeen aragti wadaag qof walba fikirkiisa uu ka dhiibanayay dad badan oo aqoon-yahano ah xildhibaano ah siyaasiyiin hore wasiirro hore ayaa ka qayb galay balse gudaha Muqdisho ayay ka qaraxday horta waxaad moodaa dowladda Soomaaliya in ay meesha u fadhiyaan ama ay u horboodayaan wasiirro ayaga aan la tirsan hawshaan oo kale aan waxba ka gelin galabtii Khamiista ayaa waxaa shir jaraa'id qabtay ayaa la leeyahay wasiirro iyo xildhibaano ka soo jeeda waqooyi galbeed waliba kuwa midnimo doonka ee wali midnimada u taagan marka laga reebo kuwa iscasilay warkii ay soo saareen war waxay ahaa gabi ahaanba ay ku dhaleeceynayeen dowladda Soomaaliya waxyaabihii ay sameeynaysay 3 sano ilaa 4 sano ee la soo dhaafay taasoo waliba aad loogu dhaleelay madaxweynaha Soomaaliya dabcan madaxweynaha Soomaaliya kama eedaan oo in Israel ay aqoonsato Somaliland waxa soo dadajiyay asaga ee ugu horeeyay leeyahay dadka siyaasadda falanqeeya intooda badan markaa firis balse nimankaas markii warkii soo saareen kadib ayaa waxaa hadlay wasiir kamid ah wasiiradda xukuumadda Xamse Cabdi Barre waxa uu ku hadlay wax ma aha qof siyaasi ah oo midnimo ka shaqeynayo oo ka karaabayo wixii dhacay xitaa inuu ka hadlo wixii uu ka hadlay waxay ahaayeen wax aflagaada wax ka sii xageeyo aflagaado kadibna waxaa dhacay in la isku jawaabo oo qof walba shooladiisa yar ee Facebook ama Twitter-ka wax ku qoro waxa la wuxuu rabo ku soo qoray walow halkaasi waliba ay dhihi karo xildhibaanada iyo wasiirada ka soo jeeda Somaliland wax ay xeerinayeen waliba oo ayagu si toos ah uma bareerin marka loo fiiriyo ninkani wixii uu bareero kale wasiir kale ayaa asagana sidoo kale iska soo hadlay oo wuxuu rabo iska sheegay nimankan waa nimanka ugu dhow Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya inkastoo markii dambe ay sheegeen in ra'iisul wasaaraha uu sheegay inay ka bixiyaan wuxuu soo qoreen qaarkood intooda badan ma tan waxay ka dhigantaa in xukuumadda qaladaadka lagu haysto ay wax sax ah yihiin wasiiradahoodii ay sheegayaan oo ayagu naftigooda ay fashalayaan taasoo ka dhigneed inay ka xanaaqaan xildhibaanada Somaliland ka soo jeedo dabcan arrintan waxay ahayd arrin la yaab leh oo fajac ah makaaga dad aan la tirsan diblomaasiyadda wax ka aqoon arrintan la wajahay waxa ay tahay walax uma muuqataba halis oo in dalkii kale go'aayo oo qarka u saaran yahay ay tahay taasoo ah inay fahan guud ka haysan waxa ay ka hadlaan ama waxa maanta dalka u yaallo oo dhibaatada maanta dalka haysato una bilaabatay sanadkan cusub dabcan mar hore ay ahayd sanad ka hor markii saan oo kale ay dhacday arrinta isla markaana casharka maysa baran arrintii hore ay ka dhacday marka waxaa wasiirada qaarkood wali ma jirto wax loo yeeray ama loo wacay ama loo ciqaabay arrintan ama xil looga qaadaba laakiin waxay ku wacneed in xilka qaadis iyo ciqaab la ismarsiiyo inkastoo aanan ogeyn waxa ka dhalan doona ama sida ay wax noqon doonto wasiiradan la sheegay inay yihiin wasiirada ugu dhaweeyay xisbiga madaxweynaha isla markaana uba qaabilsan fawdada iyo isku tirka iyo dhibaateynta ra'iisul wasaaraha Soomaaliya asagana kamuuna hadlin waa la arki doonaa balse hadda sida ay u eg tahay Somaliland waxaad moogtaa inayba ka xanaajinayso oo xamar ay ka dhex kalluumaysanayso oo dawladii dhexdeeda ay ku dhex jirto taasoo la dhihi kara xaqiiqatan waa looga badiyay dawladda Xasan Sheekh masraxa gudaha masraxa dibadda macnaha oo dawladda Soomaaliya waxay isku haleynayso xitaa maadaama ay sharciyadii guud dalka ay haysato UN-ka ay joogto dawladda caalamka oo aqoonsiga professional-ka ay tahay laakiin gudaha waxaad moodaa in aysan wax difaac u xirnayn dawladda Soomaaliya oo gool haday soo dhalisan laga soo bareejeyno
marka arrintan waxay sii fududaynaysaa in dalal kaloo badan ay aqoonsadaan Somaliland maadaama hadda la soo sheegay ilaa dhowr daro heer caalami ah oo ku yaala Asia iyo Yurubta bari meelo kamid ah in la leeyahay baasaboorka Somaliland ay aqoonsadeen ay hadda soo bixiso marka barnaamijyada noocan oo kala dabcan falanqaynteenu waxay ku saleysan tahay in dawladda Soomaaliya wali qaladaadkii isku casilin qaar kamid ah Somaliland xildhibaanadeedii ay wado